مدن قدومي واحد كورنتا مالمها إنه هو لدا يعترها أيات كودان قدها مقالة الجوار aad ku dayactiraysaan wadooyinka dhexmara magaalada ka dambeeyay roobabda ay waxyaalo soo gaarsay wadooyinkaasi oo in muddo dayactir helin yaa dayactirka aad ku sameeysaan wadooyinkaasi garab inta ka siinaya bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa su'aal aad u muhiim ah maxaa yeelay maalmahan dadku waxay iska dhaxwadaan mashruuc la soo qaatay iyo waxyaabo aan macno ku dhisneen haddana anagu مسؤوليتنا فريسو إن دلقات بدن عن سمينه دول من وسمي دونا وحول مد أباهم تهاي دلك يديجان كبو سؤال شاد يوجد دانك الجواب وصلنا نقضه واحد مشاريع مشاريع معها أو معهم كريتو أنا عن لعب قادني أما لعب نكوسينايو وهوليه إن الله إتمضي إن أي قيب كتهاي وحنا إسكسا إذا أو كلية الله سبحانه وتعالى مركه راسان مغعيسي أن كحصة مركه حكتو ما مركه قبل يدكمو إسكاشنا أي وحي دالة دعاين إن أمدح وقبطان دوالدنا وحا نقول مقالة إن يقعان إذا كسينيان قادد لي يقعن حسب طاري تاسمح كجرا هل قف ونوحلو الشيخ دير لسوا أركو دنبيلان هاي محكمة نلسوا صاروا waad madsan tahay gudoomiye waxaa jira markii lagu doortay baaq aad jeedisay oo ku saabsanaa in aad degmada Jool Bilicdeeda soo celinayso argooyin dhisayso shacabkana aad ka codsatay min $1 in ay akoon la sameeyaan ku ridaan marka arintaas halkee ku dambeysay runtii isho kaligeed oo dayo makeento isbaan baareen kaligiis wax ma dhisay wax ku balan qaaday shacabka waxaan ku balan qaaday waxay ahayd inaan dhamaanteen iskaashano laakiin in isbaan baarey kaligiis oo gurigiisa beesa ka keeno oo argo ku dhiso ma u balan qaadin sidaad arkaysid isbaan baarey intii taagtiisa dhinacoo ka bilaaway taalada aad arkaysid aan u talagalnay weliba in ay baabuurta ay kala badbaadaan iyo dadka sidaa daraadeeda haddana waxaan weli ku tala jiraa riideygii inay rumowdo dadka ay wax magaciisii ay ku darsadaan waxawaaye adduunyada waxaa jirto wax isku darsi wax la yiraahdo annaguna waa inaga maqan tahay oo waxaan ku mashquulnahay halka qofood wax qabto hal dhagax meel ku rido ayaa waxaan ku mashquulinahay dhagax meesha uu ku ridayo daya wax kale uu qabto muu waay muxuu magaciisa u sameynaa mashaariic oo soo qaatay iyo wax loo baahnaa lagu mashquulaa ha lagu mashquulaan leeyahay weliba hal dhagax meel ku rido in sidoo kale aad sameeysid hal dhagax meel ku rido ugu yaraan inaad sameeysid inaad igu maad celiso daawid oo dhagaxa meesha uu ku rido waa u baahnay dhagax kalaan ku daraa ama ku daro hataa idhahay gudoomiye waxaan arkaynaa in dhagxaan iyo jaay awoodin ku shubaysaan wax idin dhiman sidoo laamiyo kale oo ku sameeynaysan ma jira ma hawsha halkaas ku dhamaatay wallahi hawsha ma dhamaanin hadda rabtirkeeda aan kula hadlaayo waxaa soo socdo jaay aan ku shubeyno wadooyinkaas waxaana ugu talagalnay in magaciisa meel kasta oo ka jajaban magaalada ama magaciisa laamiga oo ka jajaban inaan ka dayactirno ayaan ugu talagalnay laakiin anaga taagteenaan soconaayo magaciisa taag kala ma hayno marka laga soo tago wadooyinka aad sameeynaysan waxaa jira tubooyin biyaha bixin jiray oo wadada jayga hoos mar jiray iminka way xiran yihiin taasi hawsha ma ku darteen aqabanaysaan tubooyinka anaga tubba kama shaqeynabo cidii tubada iyo biyaha ka shaqeysaa loogu baahan yahay in waxaad ka weydiisin waxaa jira wadooyinka aad dayactirteen qaar kamid oo dib u burburaayo oo isla markiiba intii wadada ay hawsh ku socda gaadiid oo mar hore ka burburiyay maxaa arintaas ka leeyihiin gaadiidka mari ayaa dambigaas leh marka hore oo ninkii marsiya dambigeeda leh haddana shacabkii oo dudaayo ka toogtamaayo dhibaatada uu geystay gaarigaas ayaa maxaan ku yiraahdo waxa aan ku qaadi lahaynbo naka celi haddana waa xushmeyneynaa shacabka haddana waa xushmeyneynaa cid kasta oo dambi naga gasho inaan cafino waxaa nasiib daro ah kuwa qaarkooda shacabka qaarkiisa ee ku dhaqmaayo qaab aan loo baahnayn qof hadduu lug ka jabo hadduu ninkii magaciisa lugta ka jabtay ee loo kabay isrido ama dhaco ama socdo uu dhaco qaladka ma aha inuu leeyahay dhakhtarkii soo kabay waxaa leexday qofkii oo socday asigoo weli kabanin ugu dambeyntii shacabka ku nool caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa shacabka Hirshabeelle gaar ahaan caasimadda degmada Jowhar waxaan leeyahay ha ku mashquulina qof wax qabtiye
ku mashquul wuxuu qabtay waxeeda kale inaa qabatay aada u maasanta